Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada waxaana looga hadlay arrimaha abaaraha dalka sida faafahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Maxamed Salaad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gudoomiyay shirka golaha wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ajandihiisa ka mid ahaa arrimaha amniga qaranka, dinacafinta xaaladda abaaraha iyo warbixin shuruucda hortabinta u leh dowladda. Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo lahaa soo jeedinta ajandaha arrinta abaarta ayaa mar uu ka hadlayay kulanka wasiirada waxa uu ku dheeraaday xaaladda abaarta ee dalka isaga oo golaha wasiirada hordhigay warbixin dhameystiran oo la xiriirta heerka ay gaartay abaarta iyo qorshaha wasiiradiisa ee la xiriirta wax ka qabashada iyo xakameynteeda. Waxa uuna ugu baaqay cid waliba dal iyo dibadda in ay qayb ka noqdaan dadaalada lagu badbaadinayo malaayiinta Soomaalida ee abaarta la tala dhacaya.